balse waxaan jeclahay inaan marka hore ku bilowdo qarax xalay magaalada Muqdisho ka dhacay oo uu ku geeriyooday Allah u naxariistay dhaawacii ka soo gaaray uu geeriyooday agaasimihii reedo Muqdisho Cabdicaziz Maxamuud Guuleed Afrika bal ugu horeyntii aragtidaada ku aadan qaraxaasi iyo tacsiirada haddii aad ku bilowdo intaan ugu dhagelin arrimaha kale ee barnaamijka بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وإنا إليه راجعون runtii xalay waxaa ummadda Soomaaliyeed ay weyday halyey weyn oo runtii 15 sano u dambeysay halkan xoogan sidii qarannimada Soomaaliya iyo codka xaqa ah ee dawladnimada Soomaaliya sidoo kor ugu soo noqon lahaa ka soo shaqeeyay duruufo adag ku soo shaqeeyay xaalad adag ku soo shaqeeyay ninkaas oo ahaa Cabdicaziz Afrika agaasimihii raadiyo Muqdisho xilal badan oo meediyaha soo qabtay la yaqaano barnaamijkiisa Gungaar runtii xalay dhimashadiisu iyo dhaawaca agaasimihii SNTV waxay ahayd dhaawac iyo maaragtay murugo weyn oo ummadda Soomaaliyeed iyo naxdin arrin la ay ahayd waxaan rabaa tacsida ka sokoow waa la dhimanayaa qof naf walbana way dhimanaysaa waqtigeeda leedahay waxaan aaminsanahay Cabdicaziz halgan iyo jihaad uu ku jiray asagoo ku dhex jiray inuu dhintay laakiin waxaa muhiim ah in la isweydiiyo dhimashadan iyo shakiga ku gadaaman iyo maaragtay arrimo badan oo isagu intii noolaa laga helay oo saaxiibadiisa uu sheegay cabsi soo wajahday iyo saaxiibadiisa laftooda iyo markii aan ilaa xalay ilaa saakay aan wareysanaynay iyagana xogo badan ay ka soo baxayso waxaa runtii jira maxaa jira xilibaan maxay yihiin tuhmada iyo waxyaabaha idin soo gaaray aad asxaabtiisa ka heshay runtii dilka qaabku u dhacay qaab shakli ah ahaa meesha lagu dilay meel laga shakiyo ahaa centerka magaalada Muqdisho ahayd meel xaggana booliis ka xigo xagga nabad sugid ka xigto xagga ciidamada madaxtooyada ay ka xigaan ayay ahaayeen waxaan rabaa inaan dilkiisa wax yar oo xog ah aan ka helay aan runtii rabo inaan la wadaago ummadda Soomaaliyeed iyo talaabooyinka in la qaado ay tahay waa marka koowaad Cabdicaziz wuxuu maalmihii la soo dhaafay sida saaxiibadiisa sheegayaan afkiisa laga hayaa in wicitaano tiro badan hay'adaha amniga gaar ahaan hay'adda nabad sugidda saraakiisheeda rag kamid ah inay u soo wacayeen oo qaarkood ay u hanjabayeen sida ay sheegeen oo asaga afkiisa laga hayo arinta ugu ballaaranna waxay ahayd oo hadda xogaa yar qaboobay muran u dhaxeeyay labada xafiis ee dalka u sarreysa xafiiska madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday iyo xafiiska prime ministerka xukuumadda xilgaarsiinta murankaasi wuxuu ahaa hay'adaha warfaafinta dawladda Soomaaliya oo Cabdicaziz qayb kamid ah oo wakiil ka ahaa oo mas'uul ka ahaa iyo Sharma Arke oo qaybta kale oo TV-ga ka ahaa mas'uul in ay dhinac la shaqeynayeen ra'iisul wasaaraha wasiirka iyo wasiirka warfaafinta oo dhinacyadiisa iyo labadaha dhinac kamid ah arrintaas marka waxay keentay in Cabdicaziz uu la kulmo iyo shaqaalihii iyo mas'uuliyiintii kale ee labadaas hay'adood inay kala kulmaan hay'adaha farmaajo hoostaga inay kala kulmaan hanjabaado iyo cagajugleyn iyo mararka qaarkood in la yiraahdo meel hebel noogu imaado sida Cabdicaziz laga hayo taas waa qodobka labaad oo saaxiibadiisa ay noo sheegeen waxa weeye in ilaa iyo arrintaas intay jirtay xafiisyada waaweyn ayaa qabowday xurguftii iyo wili xafiiska madaxweynaha farmaajo wili wuu xasuustaa cidii wuxuu geysatay farmaajana waxaan ku naqaanaa cid allaaliye cidii maaragtay arrimihiisa gasha inuusan nin wax cafi ahayn nin gacantu ka soo horeysay inuu yahay ninaan ka baqin in maaragtay dadka loo cagajugleeyo ama la xiro ama maaragtay gacanba loo geystaba inuu ninkaasi yahay qodobka xiga waxaa weeye gaariga xalay la qarxiyay gaarigiisa Cabdicaziz ma ahayn gaari nin kamid ah wasaaradda warfaafinta ka shaqeeya oo farsamo yaqaan ah gaarigiisa inuu ahaa la sheegay gaariga saacadaha uu dhimanayo saacada ka horeysay in la soo siiyay
shaki weyn ayaa halkaasi isagana ka imaan kara. waxaa shaki keeni karta maqaayadii uu ka casheynayay oo gaarigaani muraayadihiis way madoobaayeen. maqaayadda markuu ka soo baxayna waxaa timid in isla markiiba baabuur muraayadihiisa la madow yahay ana cabdicasiis lagu oqoon banaanka markuu u soo baxayna nin uu maaragtay isqarxinaya oo isku dhajiyay. taasi waxay keentay iyadana shaki kale oo ah in dee waxaanay wax qorshaysan oo abaabulan ay ahaayeen oo xataa maqaayadda lafteeda in lagula jiray oo xogta qofka isqarxinaya oo banaanka joogay qof gudaha jooga dad gudaha jooga inay isku xirnaayeen. arrinta kale oo kiiskani uu keenaya waxay tahay lamaaya hadda dowladdu markii bajaaj yar la qarxiyo ama qof meel lagu dilo dadka ka agdhow iyo kulli iyo waa laga qabtaa. ilaa hadda ma jirto cid loo qabtay. tacsi xafiiskii prime ministerka iyo xafiisyadii kale tacsi un bay hadda ku soo aruurtay iyo in janaasadiisi lagu tukado. laakiin ma jirto eriyadii skiinkii iyo faldambiyeedkii meeshii maaragtay uu ka dhacay dadkii ka agdhowaa in heedaha amnigu ay tallaabo ka qaadaan ma dhicin. ilaa saacadaas qofna looma xiran. kiiskan marka wuxuu u egyahay kiisaskii Yarisow injineer Yarisow Allah u naxariistee lagu dilay. wuxuu la mid yahay kiiskii ikraan maaragtay tahliil oo la weysan yahay ilaa hadda kuna maqan gacanta heedaha amniga mid ka mid ah ayuu kiiskani qaabkiisii oo kale leeyahay. sidaas awgeed waxaan rabaa inaan baaq u jeediyo prime minister ra'iisul wasaaruhu wuu tacsiyay argagixisada ayuuna maaragtay tacsidiisii argagixisada dishay. runtii argagixisadu waxay noqotay aalad la adeegsado oo ganacsadaha kale raba inuu dilo. wuxuu soo maraa al-shabaab ninka bulshada qaybaheeda kala duwan waxay noqdeen niman caloosho shaqaystayaal ay argagixisadii noqdeen. sidaas awgeed yaa fududeeyay in halkaas maqaayadda horteeda uu ku sugo cabdicasiis. weliba al-shabaab ay yiraahdaan muddan daba joogna waa daba joogna. yaa fududeeyay hay-adihii amniga oo dhan meelahay ka agdhawaayeen. waa qodobkaas. qodobka xiga wuxuu yahay argagixisadii waxay noqdeen af ayaan dhaweyto ikraan waxaa la yidhi hay-adda nabad sugidda waxay tiri ikraan waxaa dilay al-shabaab jilib baana lagu dilay. laakiin al-shabaab way soo inkireen waxay yidhahdeen anagu maan inkir. sidaas awgeed wax kastoo al-shabaab loo tiiriyo ama wax kastoo ay sheegtaan wax yar isug waa ogahay inay sheegteen waa midaan ka hadlayne caloosho shaqaystayaal bay noqdeen. qof kastoo raba qof kale inuu ka aarsado waxaa la soo maraa kooxahaas argagixisada ayagaana marka fulinaya. laakiin shirqoolkani wuxuu ahaa baabuurkii uu cabdicasiis watay muraayadihiisu way madoobaayeen meel buu ka soo baxay albaabkaana loo taagnaa. suurtagal maahayn baabuur lagu yaqaanay maahayn. qodobka labaad ilal aan qof loona qaban. qodobka saddexaad waxaa weeye hanjabaadaha soo gaarayay intuu noolaa. qodobka afraad waxaa weeye saaxiibadiis oo shaqada la wadaagay ayaa ilaa hadda cabsida berri subax saakadan ayuu rabay inuu dhoofo oo uu ka tago. waxay ahayd marka arrin mudabara runtii. marka waxaa rabnaa ra'iisul wasaaraha tacsi kaliya kama rabno. baaqa halkaan raba inaan jeediyo wuxuu yahay baaritaan madax bannaan oo aan la mid ahayn baaritaankii la yidhi ikraam tahliil baa loo saaray ama baaritaankii la yidhi Yarisow injineer Yarisow baa loo saaray oo ilaa hadda natiijadiisa aan soo gudbin. mid aan ahayn kaas oo hay-ada dad madax bannaan loo dhiibayo in lagu sameeyo arrinta cabdicasiis kuma filna. tacsi iyo is-oohin iyo ismurgeyn kaliya kuma filna. ninkaas wuxuu ahaa nin qarankan usoo halgamay. madaxweynaha farmaajo waxaan ognahay gabar hargeysa calanka Soomaaliya xirata lagu xiray inuu qaabilay ilaa haddana kama tacsiyeen. nin dhan oo qarankan usoo shaqeeyay oo usoo dhiftooday cabdicasiis waxaan aniga si gaar ah wuxuu ahaa hay-adaha amniga inuu la shaqeeyo dadkii sababta u ahaa baan ahaa 2011 iyo 2012 intaasoo jeer buu sigtay ceelasha biyaha ku sigtay. marka waxaan rabnaa baaritaan madax bannaan baan dalbanaynaa. arrintaasna kuma filla tacsi kaliya iyo al-shabaab baa dilay iyo waa la dhimanayaa. kiiskan waxaa weeye tuhun weyn ayaa jira waana in wasaaradda warfaafinta laga bilaabaa. baaritaanka wasaaradda warfaafinta laga bilaabo. ninkii baabuurkii yaa u dhiibiyay baabuurka watay yaa u soo dhiibiyay maxaa laga hayaa xogga baabuurka watay waa hay-adaha laga rabaa. baabuurka uu watay oo la qarxiyay baabuurkiisi ma ahayn baabuurkii sharmaarkana ma ahayn oo agaasimaha kale oo maaragtay TV-ga labadaba baabuurkooda ma ahayn. baabuur nin kale oo wasaaradda ka shaqeeya oo saacado ka hor ay soo qaateen buu waxaa wasaaradda warfaafinta gudaheeda ayaa infiltrated ayadaa la rabaa in baaritaanka laga bilaabo
iskiinka meeshii qaraxu ka dhacay dadkii fadhiyey in hay-adaha amniga iyo ciddii loo xilsaaro baaritaankaas cid madax bannaan inta loo xilsaaro inay ka howlgasho inta uu qoyan yahay raadku uusan raadku baabiin meeshan uu qaraxa ka dhacay bal haddii aad noo bidhaamiso meel ceenkee ah waaye meel maqaayada weeye oo wasaaradda amniga u dhow wasaaradda isboortiga u dhow dhanka bari waxaa ka xiga nabad sugidda ciidankeeda ka xiga booliiska xaruntiisii ayaa u dhow ciidanka madaxtooyada ayaa jooga dhankan kale waxaa jooga ciidamada hoteeladan maaragtay maa-ida la yiraahdo iyo oo aada loo ilaaliyey waa area muxasana oo taas ka sokooba ama kasoo qaadnaba inaysan ahaynba area xaq wuxuu u leeyahay in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo xaq wuxuu u leeyahay in la baaro kiiska cabdicasiis nin sahlan maahan nin argagixisadu way raadinaysay waa ognahay intaasoo jeer buu shirqool ka fogda ciidanka dowladda ayaa hadda ka hor xabadeeyey oo lug ka dhaawacay waxaan ognahay ceelasha biyaha isagoo howlgal nagula jira in argagixisadu meeshii uu wax ka duubayey ay kasoo dhex baxeen oo weerar ku qaadeen uu soo cararay oo muddo uu soo ordayey isagii ciidamo kadibna ciidamadii dee dib ay uga reebeen waxaan ognahay ninkaas nin halgamaayo runtii inuu ahaa nin sidaa fudud ciidda inta lagu rogo allaha u naxariisto keliya iyo waa laga tacsiyanaya inay ku filan tahay ma ra-iisul wasaaraha si gaara maadaama isaga awgiis loo beegsanayo dad shaqaalaha ka mid ah waxaan leenahay in uu indhihiisu kor ka ahaado inuuna baaris madax bannaan arrintaas inuu ka saaro ma rabno wax kasta dilalka odayaashii waa la dilayaa muqdisho hadeertaan waxaa la dilayaa dhalinyaradii daily hadda waxaa weeye accidentis ilaa 15 dhacdooyin oo argixisadu ay ku lug leedahay ka dhex dhacaya magaalada muqdisho haddana dee centerkii iyo calooshii iyo shaqaalihii ugu waaweynaa ayay yimaadeen ma jirayso wariyaash wuxuu ahaa wariyihii gungaar iska lahaa wariyaashu way aamusi doonaan haddii cabdicasiis kiiskiis aan wax laga qaban oo baaritaan degdega injineeriso ayaa waxba laga qaban waayo oo ikaan tahliilaya ilaa iminka la baaraya ma kula tahay marka in Afrika uu helay cadaalad almuhim waxay tahay qofku in cadaaladda hadday maanta imaan weydo beriya imaan xilligan cadaaladda Soomaaliya ee dadka la dira soo daahday soo raagto aan la helin maxaa keenay cadaaladda waxaa weeye cadaaladdan loo socon cadaaladda dhankeedaba looma socdo midda labaad hay'adii cadaaladdu waxay noqdeen dee hay-ado dadi leeyihiin oo sida ay rabaan wax ka yeelaan kiis niman Ugandaysa dad shacab ay laayeen ayaa muddo 2 bilood 3 bilood lagu soo gabagabay Agosto ahayd markay waxa dhaceen hadda maalin dhawaad waa tii xukunka lagu riday hay-addii amisom ugu weynaado ciidanka ugu badan Soomaaliya ku haysata ayaa maxkamad soo taagtay askarteedii laakiin dowladda Soomaaliya waxay awoodi leedahay inay nabad sugidda dadkii ka dambeeyay gabadha Ikraam Tahliil in la yiraahdo koow hal 3 hebel iyo hebel weeye waaba la dacweeyay magacyahoodana waa la sheegay waxa loo ogolaan la yahay in ay hay-adda inta gudaha u galaan inay baaritaan ay soo sameeyaan yiriisow baaritaankiisii madaxtooyada qarsatay waa la sameeyaa la yiri kaamarooyinkii oo dhan meesha waa laga saaray laakiin waxaan ognahay maanta haddaysan dhicin farmaajo waan ognahay siduu u duugayo kiisaska u duugo laakiin maanta haddaysan dhicin biri in kiiskani uu noqon doono kiis furma oo haddii isbedel dalkan isbedel baa ku soo socda isbedelka soo socda wixii ka dambeeya kiisaskoo dhammi ma dhiman kiis 30 sano socdaa jira 15 sano socdaa jira 20 sano socdaa jira kiisku macnaheedu ma ahan hadda baaritaankiisii waa la diiday oo la hortaagay waxaan ognahay madaxtooyadii inay hor istaagtay in la baaro Ikraam Tahliil hortaagantay hay'adaha cadaaladda soo kala shakhsi ma aha hay'adaha cadaaladda asaga wali magacaaba waxayna u haystaan in maaragtay dee farmaajo iska leeyahay hay'adaha cadaaladda cadaaladii waa la shakhsiyay militariga ciidanka militariga taliyahooda wuxuu haystaa farmaajihii magacaabay inuu leeyahay dhibkan haysta waxaa weeye weli dictatorshipkii xukunkii dictatorshipka Soomaalida ku dambeeyay hay'adihii mana kala madax bannaan garsoorku inuu madax bannaanaaday ahayd maanta in la yiraahdo maxkamadda ciidanka qalabka siday ayaa qof jooga nabad sugidda xaruntiis oo 1 kiiloomitir u dhaxaysa xafiiskooda iyo nabad sugiddii waa geli weyn inay yiraahdaan taas ceeb bay ku tahay dowladda Soomaaliya mana la sheegi karo qof kastoo gudaheeda u shaqeeyana waxay noqonaysaa inuu si gaar isku ilaaliyo gaar ahaan dadka hadda kiisaskii u dambeeyay oo khilaafaadkii xafiisyada la saftay xafiiska prime minister waxaan leenahay inay is ilaaliyaan oo amnigooda iyo dhaqdhaqaaqooda aad inay u taxadiraan waay